السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا حسوس قرر اختر إذين قرطو إذين ديارسو دكتور هباق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسة قار أهان iyo Afrika caam ahaan hadaad u fiirsatid waxaad arkaysaa dadka ajaanibka ee dalka u dhalan inay imanayaan dalka ama Hargeysa imanayaan shaqooyin aan dhalinyaradu aanay ka shaqeynin ay ka shaqeynayaan lacag iyo dhaqaale fiicanna way ka sameynayaan laakiin waxaan ka fikiraa waxa weeyaan markasta sidee iyagu fursadahaas iyo chance-gan dalkeena yaala ay u arkeen dadkii dalka u dhashayna ay u arki waayeen oo iga faa'iidi waayeen waxaan doonayaa su'aalo inaan idin weydiiyo horta ma aaminsantihiin inay fursaduhu iyo arsaaqaduhu ay cirka ka soo degaan tiro leeg tirada dhibcaha roobka dhulka hela haddana iyadoo sidaa ay u farabadantii ayaa dad yar ayaa ka faa'iido oo dadkoo dhan kama faa'iidaan maxaa aaminsantihiin fursaduhu may imaadaan mise waa la sameeyaa su'aalka kale waxa weeyaan haddaan dadaalo oon wax barto oo maskaxdayduna aad u sareyso ay shaqeynayso taasoo sabab ma u noqonaysaa fursadaha wacan inay aniga imaadaan gaar ahaan haddii fursadu ii timaadana sidaan diyaar ugu ahaan karaa sidee baanan uga faa'iidi karaa Oprah Winfrey gabadh wariya oo Mareykanka degan oo dadka dheerisa oo barnaamijyo caan ah leh ayaa waxay ku leedahay inaad fursadda diyaar u ahaatid oo aanay imanin way ka khayr badan tahay inay fursaddu ku timaado ku soo marto adigoo diyaar u ahayn nin leeyahay Tariq Suwaydan oo doctor buugaag fara badan qoray isaguna wuxuu ku leeyahay fursadaha adduunka dadka u imaada waxa weeyaan kunkiiba laba laakiin inta badan fursadaha iyo chance-ga bini'aadamka abuuro oo sameeya waa inaad fursadaada adigu aad samaysid oo aad abuurtid haddii fursaduhu kunkiiba labadaas mid ay ku timaado waa inaad diyaar aad u noqotid oo dhagahaaga u furan yihiin indhahaaguna ay wax arkayaan oo si fiican aad uga faa'iidid hadalka macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyaan adduunka waxa ka buuxda fursado badan iyo chance badan iyo arsaaqado badan markaas waa inaad fakartid oo indhahaaga aad furtid oo si fiican waxaad u maqashid sidaad uga faa'iidid oo heer fiican aad nolosha ka gaadhid oo ummadaadana wax ku soo kordhisid fursadahaas waxay noqon karaan arsaaqad ka imanaysa shaqo inta badan dadku aanay ka shaqeynin oo aanay u fiirsanin oo adigu aad ugu horeynaysid oo dhaqaale fiican ku soo gelinaysa waxay noqon kartaa fursadu nin wacan ama gabadh wacan oo diin leh oo taas fursad ay tahay oo haday ku dhaafaan fursad wacan ay ku dhaafayso fursadu waxay noqon karaan cilmi cusub aad baranaysid oo dadka in yar ay bartaan oo hadaad baratid aad noqonaysid qof ka duwan dadka oo ummadaada wax ku soo kordhinaysid fursad waxay noqon kartaa buug aad ku qoraysid arin cusub ama wax cusub ka hor aan laga hadlin oo dadka hadhowtana maskaxdooda ka shaqaysiinaysa fursad waxay noqon kartaa mushkilad ama dhibaato dadka haysata oo adiguna xal aad ku fakaraysid la imanaysid xal ka hor aan lagu fakarin fursad waxa weeyaan hal abuur wax cusub aad soo kordhinaysid fikir cusub aad la imanaysid shaqo cusub ka hor aan jirin wax kasto cusub ama fiican oo noloshaada bedelaysa iyo dadka kula nool noloshooda bedelaysa iyo ummadaada wax ku soo kordhinaysa maalin dhowto sheekaban akhri aad u cajiiba aan doonay maanta inaan idin la wadaago oo fursadahan aan ka hadlayno maanta ku saabsan sheekadaas waxay ka dhacday dalka Uganda xaafadaha leedahay xaafadaha daasadaha oo guriyoodan ay daasada ka samaysan yihiin oo ku taala magaalada Kampala waxay ku dhacday inan leeyahay Fiona Mitisi inantaas waxay ka shaqeyn jirtay xasiida ay iibin jirtay oo xaafadaha danyarta ay ku iibin jirtay waxay bilaabtay shaqada markuu da'deedu ahayd 6 jir bay ahayd markay shaqada ay bilaabtay marka ugu wacanay shaqada si fiican u shaqeyso maalintoona waxay heli jirtay $1 Mareykan ay heli jirtay abeed iyo hooyadeed waa dad beeraley oo aad u danyar inantaay wax ma akhri karto wax ma qori karto iyadoo kabalaaba inta badan socota dhar jixjixan inta badan way gashan tahay dawlad ayaa maalinba waxay furtay meel dhalinyarada loogu talagalay inay jimicsiga ku ciyaaraan oo wax ay ku bartaan meeshaas ayaa waalidkeed intay maqleen ay inantiiradu waxay ku yiraahdeen ordo halka tago jimicsiga ciyaar sababtan waxa weeyaan qofku markuu ciyaaro waxa la siinayaa cunto bilaash maalinta la siinayaa maadaama anagu aanan awoodi karin cunto inaan ku siino inantiiradu halkaas bay tagtay markay tagtay ayaa ninkii meesha ka mas'uulka ahaa dadku wax bari jiray oo loogu yeeri jiray macallim
Robert ayaa inantii markuu arkay ayuu ka naxay dharkeeda jeexjeexan iyo kabala'aanteeda iyo diifta iyo baahida ka muuqata markaas wuxuu ku yiri baxad doonaysa inaad ciyaartid waxa ku jira waxaan doonayaa inaan ciyaaro ciyaarta waqtiga ugu dheer qaadata san laba cunto bilaash u cuno markaas intuu qoslay wuxuu ku yiri ciyaarta waqtiga dheer qaadata ee laba cunto aad helaysid waxa weeyaan lacbada shataranjiga dadka inta badan aan garanayn waa lacbad shaxda u eeg ay Soomaalidu ay ciyaaraan inantii yar markay bishii ugu horeysay lacbada ay ciyaartay ayaa ninkii wuxuu ka yaabay caqligeeda cajiibka inantii yar awood bay u lahayd qofka inay garato tallaabadu qaadayo intaanu qaadin oo ay ka hor tagto taas baa ugu wacnayd in dadka meesha joogan ay ka guulaysato oo ciyaarta ay kaga badiso ilaa inta mudad ka bacdi heer gaadhay ninkii wax baray iyadoo inay ka guulaysato ay lacbada ay kaga badiso ninkii wax barayay ayaa markuu inantii arkay maskaxdeeda aad u sareysa iyo fahamkeeda iyo dadaalkeeda ayaa wuxuu ku yiri waa inaad sida wax loo qoro oo loo akhriyo adigoo shataranjiga ciyaaraya waa khalad inaad ahaatid qof jaahil waxba akhriyi karin haduu jareerkeeda uu tago wuxuu ka qancay inanteer inay joojiso xasiidan ay iibinayso oo waqtigeedo dhan ay u hodho lacbadan shataranjiga wuxuu ku yiri waxa weeyaan dariiqada qura kaga bixi kartaan faqrigan iyo baahidan idin haysata inantii way bilaabtay in wax barato ardana dadaal badan bay muujisay hadhootana waxay ka qayb gashay muddo 2 sanadood ka bacdi ciyaarta shataranjiga lagu talagalay dhalinyarada dalka Uganda ka dhacda tii waxay u soo baxday wankii oo ku guuleysatay 3 sanadood ka bacdi waxay gashay ciyaarta lagu talagalay dadka waaweyn ee shataranjiga dalka Uganda tiina wankii u soo baxday hadhootana waxay ka qayb gashay koobka koobkii Afrikana iyada heshay hadhootana waxay ka qayb gashay koobka adduunka dumarka lagu talagalay ciyaarta shataranjiga koobkii adduunkana iyada heshay 2012 iyadoo da'deedu ay tahay 16 jir ayaa waxa la siiyay magaca ugu sareeya ciyaarta oo la yiraahdo macalinka shataranjiga hadhoota waxa laga sameeyay inanta film baa nolosheeda laga sameeyay loo bixiyay Queen of Katwa filimkaas gabadhii matashayna waxay heshay jaa'isadda la yiraahdo Oscar-ka ay filimka ka heshay inantii nolosheedu way isbedeshay oo xaafadii daasadaha ka samaysna way ka guurto imika waxay ku nooshay magaalada Hollywood ee dalka Mareykanka ku taala jaamacad qaali ay dhigataa oo dalka Mareykanka ka bixiyo dhaqaale fiicanna way haysataa oo nolosheeduna way isbedeshay iyadii qoyskeedii su'aalkan imika idin weydiinaya waxa weeyaan baxay iyada gaar ahaan fursadaas ugu timi oo dhalinyarada kale ay fursadaas ay u heli waayeen talow iyadu diyaar ma u ahayd fursadaas markay u timi sidee bay u awooday duruuftii adkayd iyo dhibaatadii haysatay inay ka baxdo su'aalka qayb kamid ah waxa ka jawaabaya macalinkeeda Robert kaas wuxuu ku leeyahay inantaa markuu ka sheekeeyo anigu inantaas way iga yaabisay haddana da'deedu aad bay u yartay laakiin waxay lahayd go'aan iyo dadaal aanan dadka kale ku arkin hablaha iyada lamida ee ka yimaada xaafadaha danyarta aad bay u khajil badan yihiin go'aanna ma laha dadaalna ma sameeyaan sababtuna waxa weeyaan duruufta iyo deegaanka faqiirka ay ka imaadeen ee ugu wacan shakhsiyadooda inay masaxmato iyo inay aaminaan inaan waxba awoodi karin waxbana aanay qaban karin laakiin iyadu sidaa may ahayn ana waxaan ku darayaan odhanayaa inanteer diyaar bay u ahayd fursadda u timi way u haraadsanayd fursadu imanaysa iyo albaab u furmanayo oo ay kaga baxayso noloshan ay ku jirto waxaanay u gaajoonaysay guusha iyo horumarka iyo inay ka baxdo duruuftan adag iyo faqrigan iyo baahidan haysata waxaanay ku riyoonaysay nolol ka wacan noloshan laakiin runtii may garanayn halkay wax ka bilaabto iyo sida wax u qabato iyo sida nolosheeda u bedesho waxa quri garanaysay wuxuu ahaa inay dadaasho oo ficil ay la timaado oo dadaal iyo samir ay la timaado runtiina ilaahay markuu qofka cabdigiisa iyo adoonkiisa uu ku arko dadaal fara badan iyo niyad wacan uu doonayo noloshiisa inuu bedelo adduunka dhan buu u sakhiraa iyo duruufta iyo dadka ayuu u sakhiraa sida uu hadafku doonayo uu u gaaro waxa kale waxa weeyaan markii fursadii ay heshay si fiican bay ugu dhagtay oo way dadaashay oo caqligeeda ay ka shaqaysiisay taas baa ugu wacneed in dhalinyarada kale ay ka sareyso ay guul iyadu ay gaadho iyagu aanay gaadhin buug la yiraahdo sirta caqliga milyoneerka buugaas wuxuu ka hadlayaa sidii dadka lacagta leh ay u fakaraan ninka buuga qoray wuxuu ku leeyahay maalin ban saxaaraha u baxay markaas waxaan dhistay taandho ban dhistay oo dhex fadhiistay hadhootana roob baa soo ay dhulkii qooyay markuu roobkii uu qaaday ayaan dibadda u soo baxay waxaan arkay dhulkii u dhaweyd taandhadan ku jiray oo wada qoydo roobkii u helay laakiin aniga dabcan taandhadii aan ku jiray roobkii iimuu helin manay qoyin
ninkaas oo dhan wuxuu yidhi buugiisa wuxuu ku qoray fursaduhu iyo arsaaqaduhu waxay la mid yihiin roobka cirka ka soo da'a sida dhulku uga faa'iido roobkaas cirka ka soo da'a ee ay qoydo ayaa qofka qamcihiisa u fura arsaaqadaha iyo qalbigiisa u fura arsaaqadaha ee fursadda cirka ka soo da'aysa uu ka faa'iida laakiin qofka taandha madaxiisa dul saara ee indhihiisa xudha ee fursadaha u fiirsan iyo arsaaqadaha cirka ka soo da'aysa ma hesho kamana faa'iido waxaan tusaale soo qaadaya dhalinyaradeena inta badan dalkooda ma aaminsanay kamana faa'iidaan fursadaha dalkeena ka jirta nimcadaha dalkeena ka jirta oo taandhabay madaxooda ay dul saaraan laakiin inta badan dadka ajaanibka ee dalkeena imaada ayaa fursadaha u fiirsada oo qamcaha u fura oo ka faa'iida Cabdiraxmaan bin Awf wuxuu kamid ahaa saxaabadii nabiga la socday عليه الصلاة والسلام waxaanu kamid yahay saxaabada ugu qanisanaa buu ahaa المدينة المنورة wuxuu ku leeyahay tujaarku markay doonayaan inay wax iibiyaan waxay sugi jireen intay silcada ay iibinayaan qiimeedu kor u kaco oo lacag badan ay ka heli karaan oo markaas ay rutana iibiyaan laakiin anigu man sugi jirin oo lacag yar ban ku iibin jiray lacagta yar fara badan aan wax ku iibin jiray bay ururin jirto rutana lacag fara badan bay noqon jirtay waxaan ka faa'iidi jiray chance-ga ama fursadu inay dadkan ganacsiga aan alaabtoodii ay hayaan oo aan iibinaynin haddaba sidaad uga faa'iideysaa fursadahan cirka ka soo degaysa iyo arsaaqadan fara badan ilaahay adduunka uu ku fidiyay marka ugu horeysa waa inaad garatid ilaahay quraanka wuxuu yiri inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim oo macnaheedu ay tahay marka ugu horeysa dhaliishaada waa inaad garatid ceebtaada waa inaad garatid oo aad hagaajisid waxa ka xum oo aad buuxisid waxa ka maqan waa inaad aqoon fara badan aad baratid cilmi cusub aad baratid haday tahay luqado haday tahay farsamo qacan aad bay muhiim tahay inaad baratid waa inaad dhexgashid dadka aqoon tale ee heer nolosha gaadhay wacan ee fakaraya ee dhaqaaqaya ee noloshooda wax ku soo kordhinaya waa inaad noqotid qof dadka ka duwan waa inaad hadhowtana hadaf aad samaysid aad doonaysid inaad gaadhid oo aad meel aad ku qaratid hadhowtana markuu ilaahay kugu arko dadaalkaas iyo arko inay ka soo go'an tahay inaad meel aad gaadhid horumar aad noloshaada aad samaysid wuxuu kuu soo dirayaa fursadaha iyo arsaaqadaha ayuu ku hordhigayaa adduunka oo dhan iyo bini aadamka oo dhan iyo